والرسمية doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo ee Jubbaland laguna dooranayay madaxweynaha Jubbaland 5 sano ee soo aadan ayaa soo gabagabownay waxaana ku soo baxay madaxweynaha Jubbaland ee hadda xukuma Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo 5 sano ee soo socoto si hogaamin doona maamulka Jubbaland sida uu ku dhaqwaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan 75 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Jubbaland isla markaana dhawaan la doortay ayaa hoolka joogay iyada oo loo codeynayay 4 murashaxa ugu codka yara ayaa ahaa Abu Bakar oo helay 4 cod halka ninka lagu magacaabo Faisal oo isaguna codan 16 cod uu helay waxaase 50 cod natiijada ama guusha ay ku raacday mudane Axmed Maxamed Islaam oo Jubbaland hogaamin doono 5 sano ee soo socota 75 kaasi mudane ayaa codeeyay ma jira wax cod oo halaabay sawaxan ayaana isqabsaday hoolka dareenka dadka hoolka ku sugnaa ayaana sidaan ahaa dhinaca kale doorashadan hadda Jubbaland ka dhacday waxay ku soo aadaysaa iyadoo maamulka Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya uu cilaaqaadkooda aad u xumaa isla markaana madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo xukuumaddiisu ay xiriirka u jireen dawladda dhexe ee Soomaaliya ka hor doorashada su'aal la weydiiyay oo ahayd haddii aad ku soo baxdo doorashadan isla markaana aad mar kale noqoto madaxweynaha Jubbaland sidee baa dawladdu ula tacaamuli doontaa ayuu ku jawaabay madaxweyne Axmed Islaam oo baahnay dawladda federaalka Soomaaliya taa oo su'aalo badan keenaysa dhinaca kale laba diyaaradood oo ciidamada dawladdu ay saarayeen gaar ahaan militariga Gorgor isla markaana uu qaban qaabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha sida la sheegay ayaa ka degay meel aan sidaas uga fogeyn deegaanka ku dhaa oo halkaasi fariisin ay ku sameeysan doonaan waxa la rajeynayaa in maanta 3 diyaaradood oo kale oo ciidan ay gaaraan isla ciidamada Jubbaland ayaa iyaguna aagaas ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan xaalku ayaa u muuqda mid ka sii daraya lamana ogo halka uu khilaafkan ku dambeyn doono si kastaba Jubbaland 5 sano ee soo socota waxa hogaamin doona madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe